ولفرن إنه كاري مهمة أو خبريزي أجمع عليه إنه نوجد وذلك ملحوينه runtii bulshada Soomaaliyeed meel walba maanta ay joogaan waxay ku faraxsan yihiin in madaxweynihii Jabuuti halkan uu soo booqday oo laba maalin halkan uu joogo waxay kaloo ku faraxsan yihiin xalay inaad wada fadhideen adiga iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labadiina wada fadhiya arrinkaasi bulshada Soomaaliyeed aad ugu farxay waxay kaloo bulshada Soomaaliyeed aad ugu farxeen wasiiradii ka socday xukuumadda Jabuuti iyo wasiiradii ka socday xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wada fadhiya sidaas oo kale baarlamaankii Soomaaliyeed iyo xubno ka mid ah baarlamaankii Jabuuti oo wada fadhiya madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ugu horeen u mahadceliyay labada aqal ee baarlamaanka dalka wuxuuna aad uga hadlay muhiimadda ay midnimada u leedahay shacabka Soomaaliyeed dhalin iyo waayeel waxa la inaga sugayahay wax weeyaan inaan ka jawaabno rabitaanka shacbiga lanooma ogolaanayo in dadweynuhu uu ka qaado niyad jab lama ogolaanayo inay dadkii ay doorteen intay hawshii loo eegmaday ay qaban lahaayeen ay madaxa isku dhiftaan lama ogolo waxa la ogol yahay inaad sidaa iskugu duubnaataan waxa la ogol yahay inaad wixii nii dhaxeeya dhan u dhigtaan waxa loo baahan yahay inaad kala garataan wixii meesha aad u timaadeen iyo wixii naftiinu ay doonaysay ama danihiina qaaska sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu sheegay in madaxda qaranka Soomaaliyeed looga baahan yahay in mar walba muhiimadda koobaad ay siiyaan horumarka dawladnimada si shacabka Soomaaliyeed ay u helaan dawladnimada ay xaq u leeyihiin ammaano la noo dhiibtay waajibkeennuna uu yahay in aan ammaanada mar walba xasuusnaano inaan dadkeenna ugu liita xasuusnaano in dadka wax sheeganaya inaan xasuusnaado xaqooga sidii ay u heli lahaayeen inaan dhismihiisa loo kala harin waddanka in difaaciisa aan loo kala harin in horumarkiisa aan loo kala harin in dadkeennu ay ku farxaan waxaan ay noo igmadeen inaan si wanaagsan oo saxiixa inaan u qabanayn ma doonayaan inay dhegaystaan sheeko kale waxaan annaguna leenahay madaxweynaha haddii la yahay waxa weeyaan ninka dembigu saaran yahay ugu horeeyo isaga wey waan ogolnahay inaan ishoos dhigno ummadeenna Ibraahim Gudle Isxaaq raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho فضلا سبسكرايب قاعد بدك تعدل على كويستو بدي بدي سبسكرايب كله حتى فرتنا حتى مشغول كاتاي فريرة وصار ده هذا ما حكى قلي سمعنا قرن